akhwati fi lcaqiida, waxaan insha allahu tacaala intii alla la waafajiyo ka odhan doonaa adduunkan iyo qiimaha uu ku leeyahay alla subxaana watacaala afkiisa. adduunkaan maanta joognaa waa waxa bini aadamka o dhami mutasaaximka ku yahy, waa waxa dadba isku hayo, loo loolamayo, la kala boodayo, la kala riixanayo. adduunkan maanta jooga waa kan dadka intiisa badan hadduu soo galo u farxayo. waa xoola ku soo galaan ama uu qofku kharash helo yafrax, haddii waayo uu cadhoonayo dubayo ama uu qadarka naagayo. adduunkan maanta joogay ah mid qofku markuu waayo wax ku colaadinayo, ku dagaalamayo, helistiisa uu cid ku xidhiidhinayo, kusoo dhaweynayo. qofka muslimkii wuxuu rumaysan yahay ilaahi subxaana watacaala wax walba sidii u qiimeeyey. intee adduunkani qiime afkiisa alla ka leeyahy subxaana watacaala, intee ayaa loo baahan yahay qofka muslimkii inuu kala xidhiidho. ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya ya ayuha aladiina aamanuu ma lakum ida qiila lakum infiruu fi sabiili illahi istaqaltum ila alard araditum bilxayaati dunya fama mataacu lxayaati dunya fama mataacu lxayaati fi laakhira ila qaliil fama mataacu lxayaati dunya fi laakhirati ila qaliil. alla subxaana watacaala wuxuu tilmaamaya waa kuwa iimaanka laga helayo baa ilaahay leeyahay. haddii layna yidhaahdo alle jidkiisa u kaca, maxaad dhulka isugu dhejinaysaan baa layidhi subxaana watacaala. ma waxaad raalli ku noqoteen baa ilaahay leeyahay adduunka kan oo aakhiro ka doorateen. war adduunkan birbirkiisa nololeed dhammaantii marka loo qiimeeyo aakhiro la dhinac dhigo waa wax yar baa ilahay yihi ilaa qaliil. waxa ilaahay subxaana watacaala nolosha adduun oo dhan ku sifaynaya inay tahay mataac. mataaca fi luga waxaa la yidhahdaa ma yutamatacu bihi mina laa yabqa, waxa lagu raaxaysto ee aan waaraynin, waxa waxoogaa la isticmaalo ee markiiba dhammaada, kaas baa la yidhahdaa mataac. ilaahi subxaana watacaala wuxuu inoogu tilmaamaya qur-aanka adduunkani qiimaha uu ilaahay afkiisa kuleeyahay xuye waa mataac baa layidhi. waa mataaco markiiba wuu dhamaanaya. waxaa alla subxaana watacaala mataacnimada ku tilmaamaya aayaad qur-aan oo tiro badan. waqaaluu rabbana lima katabta calayna alqitaal lawlaa akhartana ila ajali qariib qul mataacu dunya qaliil waalaakhiratu khayru liman ittaqa. ilahay wuxuu leeyahy waxay markii la waajib yeelay inay ilaahay kiisa u diriraan waxay odhanayaan maa dibna looga dhigo. waxaad ku tidhaahdaa baa ilahay yihi qul mataacu dunya qaliil, waan adduunkan inta lagaga raaxaystaa waa wax yar baa ilahay yihi, ee aakhiro ayaa khayru liman itaqaa. qofka alla ka cabsada subxaana watacaala aakhira ayaa ufiican baa layihi. waxaa ilaahay qur-aanka ku leeyahy wafarixuu bilxayaati اdunya wama alxayaatu اdunya fi laakhirati ila mataac. nolosha adduun bay ku farxeen, adduunna aakhiro hadii loo eego waa mataacun baa alla yihi subxaana watacaala. dalika mataacu lxayaati اdunya wallahu cindahu xusnu lma'aab. dunida kale aynu markaasi ku kor noolahay waa dhaldhalaal yar oo dhamaanaya. ilahay baa wuxuu leeyahy inaa jacalnaa maa cala alardi ziinatan laha. waxaan ka yeelay baa ilahay leeyahy dhulka waxa kor saaran oo dhan ziina, wax lagu qurxiyo. maxaa loo qurqurxiyey? linabluwahum ayuhum axsanu camala wainaa lajaaciluuna maa calayha saciida jurza. waxaan u dhaldhalaaliyey baa ilahay leeyahy adduunka kan in aan dadka ku intixaamo, inaan eego dadka kan iyo mawqifka ay adduunka iska taagaan. dabeetana waxaan ka dhigi doonaa baa ilahay leeyahy subxaana watacaala meel biriya oo la tirtiro.
adduunku wuu yaryi waa qaliil baa ilahay yiri ciladu xaggee kaga jirta yani markaad leedahay shay wuu yar yahay waa in shay kaloo la dhinac dhigaa u jiro, waayo waa laba shay markaad ku qiimeysa odanaysa kana waa yaryay kana waa badan yahay, maxaa la dhinac dhigayaa lagu qiimeynaya? waxaa la dhinac dhigaya waxa ay dadku ka dooranayaan. tu'tiruuna alxayaata addunya walaakiratu khayru waabqa, waxaa la dhinac dhigaya waa aakhiro. adduunka noloshiisaad dooranaysaan baa ilahay leeyi bal tuxibuuna alcaajila watadaruuna alaakhira. adduunka waxaa la dhinac dhigaya marka koowaad oo yaraantiisa lagu tilmaamaya waa aakhiro, waayo labada inaad mid doorato weeyaan, in qofku aakhiro iyo naciimkeeda doorto oo adduunkan u arko daaru ibtilaa inay tahay, iyo inuu adduunka degdegkiisa iyo ku raaxaysigiisa jeclaysto oo aakhiro ilaabo aanu isku mashquulin. waa labada mid. idan adduunku waa qaliil. wuxuu qaliil ku yahay jannada waxa yaallaa badan. jannada ilaahay wuxuu leeyahy waa nicmo tiro badan, waa beeqo, waa jannooyin, waa webiyo, waa kullu shay lagu naciimaysto. wafaakihata mima yatakhayaruun walaxmi tayri mima yashtahuun. wax wal oo bini aadamku uu u baahdaaba way taalla. idan adduunku wuu yaryey, wuxuu yaryey marka aakhiro loo eego. sida awgeed buu nabigu salawaatu llahi wasalaamu caleyh wuxuu leeyihi ma dunya fi laakhira ila kama yajcal axadukum isbacahu hadihi fi lyam falyandur bima yarjic. adduunku aakhiro marka la dhinac dhiga buu nabigu yihi salawaatu llahi wasalaamu caleyh wuxuu la mid yahay nin farta biyo geliyey badda. haddaad farta geliso maxaa kaasoo raacaya? yani badda biyaha haddaad farta geliso intee in lag ba kusoo raacaysa? yani gacantaadu inay qoydo uma kusoo raacaya. intee in lag baa hadhaysa? badii oo dhan baa hadhaysa. haddii adduun iyo aakhiro laysdhinac dhigo min xaysu ilkasra, tirabadnin marka laga eegayo haddii laysdhinac dhigo waxay u dhigmaan ba alla leeyahy subxaana watacaala in ay tahay waxaa yar 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 waxa kaasoo raacaya. aakhiro nimcadeeduna inay tahay ku tiro badan. sida awgeed ayaa waxay leenahay adduunku wuu yaryi marka loo eego aakhiro nimcadeeda. adduunku baynu leenahay waa faani, wuu dhamaanaya, wuu dhamaanaya. aakhirase way waareysaa. oo adduunka iyo waxa nimco yaalo o dhan waa laba midun, inaad adigu juusho oo ka tagsid oo geeriyo ku dayn weydo, iyo in isagu kaa tago intaad ururiso in aafo kale ku dhacdo, dagaal dhaco, balaayo kala dhacdo, mashkilada dhacdo, khasaare dhaco, markabkaad raratay degto, dayradaad waxsaartay degto, si kale inaad ukhasaarto. idan inuu isagu kaa tago iyo inaad adigu ka tagto labada mid un baad ku jirtaa. ama aakhiro ukuluhaa daa'im wadiluhaa ba ilahay yiri waxaa lagu cunaya waa daa'im, ma bedeleyso. hooskeed iyo hadhkeed iyo nimcadeed oo dham waa joogto, aafa kuma dhacayso. waa daaru salaam, daarta nabadgelyada weeyaan. ilahay ba wuxuu leey maa cindakum yanfad, waxa agtiina yaallo dham waa dhamaanayaa ba ilahay leeyi. wamaa cinda allahi baaq, ilahay si agtiisa waxa yaallaa ma dhamaadaan. bal adduunka waad ururinaysaa, laakiin intaad intifaacsanaysaa baya waa laga yaaba in malaayiin soo ururiso, laakiin adiga maxaa kuu arsaaqa aad ka leeday? waxaad aakhira isaga sii horumarisay, waxaad cuntay, waxaad huwatay, inahaas baad adigu ku leeday. inta kale dad kale uma dhaxlaya ama u hadhaya, adiga risqaaga kama mid aha. inta kale dad kale waad soo kasbaday oo waad soo ururisuun, laakiin risqigaagii maaha cid kalea u hadhaysa. sida daraaddeed waabay kula degdeg badantay sida ay ku dhaafayso. aakhire marka la tagaba ilaahay wuxuu leeyahy maa labisuu gayra saaca. marka la weydiiye waxaabad moodaa dunidii la sheegayaba saacad in leeg inaan lasoo joogin. saacad intay leeg waa wakti aada u yar. yani waxaa la tilmaamaya sida ay u dhamaan doonto kaanahum yawma yarawnaha lam yalbasuu ilaa cashiyatan aw duxaaha. aakhire markaysa soo taagaan baa ilaahay leeya qiyaamuhu dhaco, waxay u ekaanayaan inaanay gelin dambe wixi ay dunida soo sheegeen oo dham ina intaas.
yaraanteedii iyo sida zamankeedii u degdegay. qofka maanta 90 jira way la yartay intii uu soo maray, maalmuun bay la tahay, qadhan badan ma leh. qofka 20 soo jirayna maalmuun bay la tahay, qofka 40 joogana maalmuun bay la tahay. idan waa wax yar, qofna ismale waa ka dheregtay ama in wax laga qaadaba ka qaado. sida daraadeed baa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu qur-aanka in badan ku tilmaamaya, اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. إلهي وحط المامية سبحانه وتعالى أجنب اللعب إلى اللهو والليل دال أخيرات أما اللهو بدل وقال رب الضلالة إنسانا in urursiya iyo caruuriya iyo wax la nooca waxoo dhan marka la isku daraba ilahay muxuu lamid yahay kamathali ghaysin acjaba alkufaara nabaat. wuxuu lamid yahay baa la yidhi roob da-ay oo beeralayda farxad geliyey. roobku markuu do-o oo doogu soo baxo inta in laguu jooga, yacni bil laba intaanu joogin dabayl baa ku dhacda oo biyihii baa yaraada oo dib buu u engegaa oo dhulkii quruxda badnaa dhammaantii wuxuu noqdaa maxay? meel cidloo lama degaa buu ekaada. saa daraadeed baa ilahay inamaa mathalu lxayaati dunya kamaa in anzalnaahu min asamaai faاkhtalata bihi nabaat alard faasbaxa hashiiman tajruhu riyaax. adduunkaad joogtaan oo dhan marka laisku daro baa ilahay leeyi subxaanahu watacaala wuxuu la mid yahay biyihii cirka ka sodhay ee dhulka ku darsamay ee waxa dadku cunaa ka soo baxeen ee dabeetana markiiba intii engegay xaabada iyo xashashki iyo xashiiska noqday. aayaad tiro badan baa ilahay masalada ku tilmaamaya. wadrib masala alxayaati dunya kamaa in anzalnaahu min asamaai faاkhtalata bihi nabaat alard ama inama masala alxayaati dunya kamaa in anzalnaahu min asamaai faاkhtalata bihi nabaat alard. ilahay aayaad qur-aan oo tiro badanna buu ku sheegaya. kulu hadihi alaayaat waxay sheegayaan adduunkan iyo yaraantiisa iyo sida uu markiiba kuu dhaafayo ee aanu ahayn wax kii raadaya. waxaa intaa weliba raacda nicamka yaalla adduunku dhammaantood waa mukadara, ama nimco saafiya maaha, waa nimco nuqsaanteeda leh. masalan caruurta nimco alla uu bixiyo subxaana watacaala, laakiin haddana waa hawl kale, tarbiyeyntooda iyo kobcintooda iyo ilaalintooda iyo weyntooda. qofka aan haysanin wuxuu u arkaa nimca inay ka maqantay, ka haystee la siiyeyna waa daalan yahay oo isagoo nimco u arkaa ayuu haddana ku daalayay. waa nimco nuqsaan leh. nicamka dunida yaallo oo dhami waa nooca. aakhiro ilaahay subxaana watacaala masalan khamru ku sheegay uu bini aadamku ku tafakuho ku raaxaysanayo, laakiin waxaa laleeyahay ka aakhiro dhib ma leh, sakrad ma leh, calool xanuun ma leh, ka adduunyada wuu leeyahay. aakhiro waa ladatin lishaaribin, waa mid macaan. ka adduunku wuu kululiyay bay yidhahdeen afkaa caddaado googo-a dadka cadda. ka aakhiro ilaahay wuxuu leeyahay laa fiiha hayl, hayl kuma soo dawikima walahum canha yanzifuun. labada midna male. ka adduunku maskaxduu kaa qaadaya, calooshaa ku xanuunaysa. waa kuwa axadda aragteen waa warta sabtiga habeenka axadda waxay ugu cadaa gaalada meelaha joogta. subaxa axadda waxaa loo yaqaana subaxii wareerka, waayo qof waliba khamrigii uu soo cabay taaka ama wuu matagaya ama madaxaa xanuunayo wuu shiifaa ma kacaan maalinta dambe. ka adduunku dhibtaasoo dhan buu leeya, ama ka aakhiro waxaasoo dhan male. idan nicmo kastoo adduunka taalla noocay doontaba ha noqotee waxay leedahay nuqsaan baa la socota. amaa nicamka aakhiro yaalla iyadu nuqsaantaa male. masalan maal soo qabo xoolo, adduunka xooluhu waa wax la jecel yihi inuu qofka bini aadamka helo aada buu ugu yaryarayo u raadacaynaya, laakiin markuu helo ugu yaryar badan yihi siduu u ilaalin lahaa, siduu u dhawri lahaa, siduu u korin lahaa, saanay uga lumi lahayn. markaasa warwarkeeda ugu tiro badanna uu qofku taagay. adduunka kani waxay leenahay waa wax xaqiiqa cinda allahi subxaana watacaala, waayo inuu liiso waxa kuugu filan qur-aan badan oo soo arooray. masalan ilahi subxaana watacaala wuxuu leeyahy walowlaa an yakuna annaasu ummata waaxida
لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. aayaadkan ilaahay wuxuu leeyahy subxaana watacaala haddii lala yahay baa ilaahay leeyahay inaanay dadku wada gaaloobeynin, qof kastoo gaalooba waxaan ku abaalmarin lahaa baa ilaahay leeyahay adduunka gedigiisa. yani inuu kufri abaalmar u noqdaa waxay sheegaysaa xaqaaradiisa iyo liidashadiisa. saa awgeed baa ilahay wuxuu leeyahy qof kastoo ilaahay ka gaalooba waxaan u yeeli lahaa guri saqafku uu fido yahay, silbar yahay, iyo macaarij sallaamo lagu koro, abwaabtooda guryaha albaabadooda iyo sariiraha waxaan ka dhigi lahaa zukruf iyo dahab iyo mid lagu raaxaysto. waxaasaan uga dhigi lahaa ba ilahay leeyi. bimujarad inuu qofku ilaahay ka gaaloobo abaalmar waxaa loo siin lahaa. wax liisa soo maaha qofku markuu ilaahay ka gaaloobo ilahay wuxuu siinaya waa wax liisa in lagu abaalmariyo. abaalmar waxaan uga dhigi lahaa buu leeyahay alla inaan sariiraha iyo albaabada dahab looga dhigo, saqafka sarena looga dhigo fido iyo silver looga dhigo oo uu noocaa noqdo. laakiin waxaan uga cabsanayaa baa ilahay leeya in dadkao dhami lumaan, adduunye jacaylka inuu dadkao dhan wadadaa ku wada ridoo la gaaloobo, taas daraaddeed baa looga cabsanaya. laakiin ilahay agtiisa qiimo kuma laha. sida daraaddeed buu nabigu salawaatu llahi wasalaamu caleyhi wuxuu yihi xadiidka imaamu axmed iyo tabrani iyo bayhaqi ay warinayaan ee sheekh alalbanina uu xasanka ku tilmaamayo, wuxuu nabigu leeyahy salawaatu llahi wasalaamu caleyh in allaha tacaala jacala maa yakruj min bani aadama masala lidunya. ilaahay subxaana watacaala bini aadamka wuxuu uga dhigay tusaale waxa bini aadamka ka soo baxa ee saxraa buu nabigu ku tilmaamaya. yani adduunku wuxuu lamid yahay baa laleeyahy inta suuliga la dhigo musqusha la dhigo. adduunku markaa qiimihiisu waa maxay? saxrada miya agteena qiimo kaleeda soo wax layska fogeeyo oo la asturo oo urteeda layska ilaaliyo oo aragtideeda layska ilaaliyo oo si wal waa wuxuu qofka bini aadamku jecel yahay inaanu arag oo ururin oo noocnaba ay ka qarsoonaato. waa wuxuu jecel yahay qofku inay fogaato. nabiguna salawaatu llahi wasalaamu caleyhi wuxuu ku tilmaamaya misaalka uu alla idin siinayo adduunku. xadiis kale imaamu ibnu xibaan iyo tabrani ay warinayaan oo sheekh alalbanina taxsiiniy wuxuu nabigu leeyahy ina maطcama bni aadam qad duriba masala lidunya wain qazaxa malaxa fandur ilaa ma yasiir. ilaahay wuxuu misaal uga dhigay baa laleeyahay waxa aa cuntaan ayaa adduunka misaal looga dhigay. xataa buu nabigu leeyahy wain qazaxa, qazaxu waa tawbalka. xataa buu nabigu ku tilmaamaya ku dardar basbaas iyo wax lagu banaaneeyo iyo milix iyo macaan waxaad doonta ku dar. cunno si kastoo aada uga shaqayso u macaanayso marka la cuno maxay noqotaa? waa iska mido. haddii la cuno iyadoo aan laga shaqayn oo lagu darin hoor iyo milix iyo basar iyo waxba soona iyadoo lagu darin haddii la cuno, iyo haddii la cuno iyadoo la dandhanaaniyo la macmacaaneeyey, natiijada ay soo baxdaa waa isku mid. saa daraaddeed buu nabigu wuxuu leeyay salawaatu llahi wasalaamu caleyh adduunka qiimeyntiisu waxay ilaahay agtiisa ka tahay buu nabigu leeyahy oo misaal laydinka dhigaya. cunadaa cunteen xataa milix iyo bahaaraad ku dardara, waxa wax lagu hirqurxiyo o dhan xataa ku dara buu nabigu leeyahy salawaatu llahi wasalaamu caleyh. waxa ay ku dambayso ayuubuu yahay adduunkuna miduu ku dambaynayo. waxa kugu filan nabigu salawaatu llahi wasalaamu caleyh xadiidka imaamu muslim fii saxiixi uu ku aroorinayo ayaa maalin soo baxay iyadoo saxaabada la socdaan, dabeedna meel suuquu soo maray. suuqi iyadoo la marayo oo dadkii o dhami nabiga la socdaan ayuu wuxuu nabigu ku soo baxay salawaatu llahi wasalaamu caleyh orgi yar oo dhukan ama dhaga yaryar oo baktiya. waa neef xoola ah oo orgiya kow oo marka labaad dhukan amase dhaga yaryar si qofku u yaqaano kolba, oo marka saddexaad meyd ah. idan orginimadu dee dadku waxarahay ka jecel yihin, waa qiimo inuu dhukanaado fool xumaadaana waa qiimo sii yaraan, inuu bakti yahayna waa mar saddexaad oo sii qiimo beelay. kaasuu nabigu soo maray
saxaabadiina way la socotaa. dabeetana intii dhegta sidaa u qabtay buu wuxuu ku yidhi waryaa kan dirham iga siisanaya buu nabigu ku yidhi ergiga ayuu nabigu wuxuu leey waa gatay yaa iisanaya ergigaa baktiga ah oo yaa dirham iga siistay. waxay ku yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo ma nuxibu anahu lana bishay wama nasnacu bihi. bismi illahi raxmaan iraxiim. walaalayaal waxaan naga cudurdaaran meesha inay aada u yar tahay saas awgeedna mataqaana ay keentay in dad badan ay banaanka taagan yihiin. marka haddii insha allah berri meesha aynu banaanana xagga ayaan anaga filasanana. laakiin hadda waxaan naga codsanaynaa marxaladii hadda rabaalii kulli isku daydirka caruurta hore usoo bixiya si gabdhaha walaalahana banaanka tagan ay boos u helaan. waxaan naga codsanaa isku daydirka insha allahu tacaala weli dib u dirka gabdhaha hore dib u dirka si boos loo helo insha allahu tacaala kuwa qol ku jira sidoo isku dirka gabdha badan walaalaha banaanka tagan insha allahu tacaala. caruurta yararkaa hore usoo bixiya caruurta yararkaa. laakiin ana hala qayliyo ma dhihin hala qayliyo maan oran anigi ana waxaa ihi hala dirko keliya hala qayliyo ogeysiisa kuma jirin. ogeysiisa wuxuu ahaa keliya hala dirko oo hala taageeyo. marka insha allahu tacaala caruurta yarkaa soo dirkiya faftaxuu yaftaxu llahu lakum insha allahu tacaala gabadha ayaga banaanka taagan dib isuu dirka insha allahu tacaala beritaan dhaanana haddii ilah yiraahdo. caruurta hore usoo bixiya insha allahu tacaala mataqaana laa yumin axadukum xataa yuxiba liakhihi maa yuxiba linafsi. saa naftiina ayla jeceshiin khayrkeeda ina gabdhaha walaalihiina banaanka taagan ayana khayrka la jeclaataan insha allahu tacaala maxdara noo socota faftaxuu yaftaxu llahu lakum wax yar dib iyo dadka iskula cariiriya gabdhaha taagan qolka iyo gabdhaha taagan waxaan ka codsanaynaa gabdhaha walaalihiina tartiib oo la fariista si ay mataqaana boos wala heshaan insha allahu tacaala meesha kulli aad arkaysaan berri aynu banaaneynaa anaga noo qaangelayna ilahay idankii laakiin maanta loo dulqaato iskula cariiriya insha allahu tacaala. caruurta yarkaa boosaska haysa caruurta hore loo soo bixiyo insha allahu tacaala. haddana hala aaminta maxdarada soconaysa. asalaamu calaykum. insha allahu taala iniga hala aaminta marka gabdhaha taagan insha allahu taala kuwa dibada taagana waxaa loonahay dhinacaas iyo inta kasoo gala insha allahu taala kuwa taagana hala fariisto hala aaminta insha allahu taala bidn illahi karim. waxa uu nebigu soo maray salawaatu ullaahi wasalaamu calayh meeshaasi suuqa ah ee uu yaallo neefkaa yar ee baktiyey. dabeetana nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi intuu kor u qaaday ayuu wuxuu ku yidhi waryaa iga gadanaya buu yidhi orgigaa dhukan ee meydka ah iyo dirham siisanaya buu nebigu ku yidhi. waxay ku yidhahdeen saxaabadii maa nuxibu ana lahu lana bishayin wamaa nasnacu bihi. ilaahay rasuulkiisiiyo maxaan ma jecelin inaanu bilaash ka qaadano yani ma jecelin inaanu yeelano bay ku yidhaahdeen ee maxaanu ku falaynaa markaa isagoo nooca kale yani gadashadiisa maxaanu ku falaynaa. su-aashii koowaad oo nebigu weydiye waxay yaa lacag siisanaya oo hal dirham siisanaya. waxay idhahdeen ma rabno. nebigu su-aal kale ku soo celiyey salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh. wuxuu hi haddaba waxba hayga gadanina atuxibuuna anahu lakum ma jeceshin inaad yeelataan milkiya una yeesha sasaan idin siiye lacagna ha bixinina bilaash ku qaata sidaa yeela buu ku yidhi. waxay idhahdeen qaaluu wallahi law kaana xayan kaana cayba inahu asak fakayfa wahuwa mayit. waxay idhahdeen ilaahu rasuulkiisiiyo hadduu noolaan lahaayo ordi nool uu ahaan lahaa ceeb bay ahaan lahayd inaad yeelato waayo waa dhukanyi waa orgi dhagayaryaro qool cun ee fakayfa isagoo baktiyo maxaad u malaynaysaa ba ina ilahi rasuulkiisiiyo. sida daraaddeed inaanu yeelanona ma rabno bay leeyihi inaanu yeelano oo hantidayada soo galo kaama rabnay ku yidhaahdeen.
markaasuu nabigu wuxuu ku yihi salawaatu llahi wasalaamu calayh fawallahi ladunya ahwanu cala allahi min ajrikum. fawallah nabi maxamed baa dhaaranaya salawaatu llahi wasalaamu calayh. dabeetana wuxuu leeyahy fawallahi allaan ku dhaartaye ladunya ahwanu cala allahi min hada calaykum. adduunku ilaahay agtiisa waa kaga liisaa, kaga xaqiran yahay kani idinku qiimaha u agtiina ku leeyahay. orgi baktiga qiimaha u agteena ku leeyahay waa intee? waa in la aaso oo laiska fogeeyo. qiimaha agteena ku leeyahay waa kaa. yani qiimo kale oo maadiya ama macnawiya inoo samaynaya ma jiro. nabigu wuxuu leeyahy salawaatu llahi wasalaamu calayh fawallahi ladunya ahwanu cala allahi min hada calaykum. adduunka kanaad arkaysaa kaasi uu kaga qiimo liisaa alla agtii subxaanahu watacaala. idan ma aha adduunku dadka muslimkaa, qofka muslimkaa agtiisa wax qiimo weynle ma aha. adduunyada nooca kani waxau nabigu ku tilmaamaya salawaatu llahi wasalaamu calayh low kaanat iddunya taadilu cinda allahi janaaxa bacuuda. adduunkana arkaysaan oo dham hadday ilaahay agtii garab kaneeca leeftay. kaneeco waa xasharadan yaree wax dhibta ee dadka qaniinta. insectkaa yar, xasharadaa yar garabkeedu labada baal ay ku dusha intay egi marka hore kaneeca yarta oo wax nafla aan ahayn, haddana kaneeca la qaybqaybiye markaasaa waxaa la qaatay garab kamida. garab kaneeco intuu qiimo agtaada ka leeyi, yani kaneecaan qiimo lahayn waaba garkeeda. saa daraadeed buu nabigu wuxuu leeyahy salawaatu llahi wasalaamu calayh kaneeca garabkeed hadday la qiimo tahay adduunku gebigiiba alle agtiisa maa saqa kaafira minha shurbata ma, gaal biyo kama dhabansiiyeen buu nabigu yihi salawaatu llahi wasalaamu calayh. idan mar hadday kaneeco garabkeed ka liidato waanay qiimo alle agtiisa ku lahayn subxaanahu watacaala, uma aba yeelin gaalkii cadda iyo ciddii hesho iyo waxa ka waayo qiimo agtiisa kagama fadhido. xadiiska imaamu tirmidi ibn maaja ga warinaya, sheekh albaanina saxix ligayriba ku tilmaamaya. bal nabigu salawaatu llahi wasalaamu calayh wuxuu tilmaamaya addunya sijnu lmuslim wa janat lkaafir. adduunku marka la eego waa qofka muslimka ah xabsigiisa buu nabigu ku tilmaamaya. waayo qofka muminka ah adduunku wuxuu yahay daaru ibtilaain wa imtixaan. wax kasta oo soo gala ama hanti ha noqdo, magac ha noqdo, maamus ha noqdo, wax kasta oo nimco ilaahay siiyey oo haysaynaysa mid lagu intixaamayo. wuxuu arkaya mid akhre la weydiinayo inay tay. sida daraaddeed adduunkan la arkaya qofka muslimka agtiisa xabsi buu ka yahay. xabsigu miyiga meel lagu raaxaysto, yani qof xabsi jeel ku jira oo u arkayo inuu raaxaysanayo miyaad arag? waa maya. qofka xabsiga ku jira muxuu ka firaya goortu ka bixi lahaa iyo meesha ka fiican u tegi lahaa. waayo wuxuu u arkaa xabsigu inay meeshii u liidatay ee qof bini aadami dego. saa daraadeed wuxuu raadcaynaya inuu ka baxo oo freedom u helo, inuu xorriyad helo oo uu u baxo meel kale oo lagu nimcaysto. adduunka kani qofka muminka wuxuu ku yahay xabsigaas. waayo wuxuu raadcaynaya qofka muminka inuu ilaahay la kulmo iyo inuu janno galo. jannana waa nimco aada u weyn. saa daraadeed meesha kani xabsi buu arkaya. saa awgeed buu nabigu wuxuu tilmaamaya qofka muminkii ilaahay la kulankiisa jecel, munaafiqi daalkuna ilaahay la kulankiisa ayuu necab yahay. waxau nabigu ku tilmaamaya addunya malcuuna malcuunu maa fiiha. yani adduunka ka waxaa la tilmaamaya inay tahay sababu zayg, waxyaabaha qofka diintiisa ka weeciya. saa daraadeed buu nabigu salawaatu llahi wasalaamu calayhi wuxuu ku tilmaamaya adduunkani inuu yahay mid ilaahay naxariistiisa laga fogeeyey. waxa joogaana ay malcuun yihiin ilaa iyo laba qolaa lasoo sheegay, ila dikra allahi waman waalaa wa calimin aw mutacalim. ilaa iyo ilaahay xuskiisa iyo inta ilaahay u xidhan ee muminka ah, iyo qof caalima oo wax baranaya iyo mid mutacalima oo wax baranaya.
intaa waxaan ahayni naf ma laha baa laleeyahy subxaana watacaala. adduunka kani waa meel dhib badan, xataa ka shaqisiisaa dhib ah. haddaanu qofku wanaagga u adeegsanaynin, waxaa nabigu ku tilmaamay tacisa cabdu dinaar wa cabdu dirham wa cabdu lkhamiisa in ucطiya radi wain lam yucطa sakit tacisa wاntakas waida shika falam taqash tuuba licabdin aakidin bicanaani farasihi fi sabiili illah ashcasa ra'suh mugdaratin qadamaah in kana fi lxaraasa kana fi lxaraasa wain kana fi saaqa kana fi saaqa wain ista'dana lam yu'dan lah wain shafaca lam yushfac. xadiiska imaam albukhaari baa warinaya. wuxuu nabigu leeyahy salawaatu llahi wasalaamu calayh, waxaa hoogay qofka dinaarka waa nooc waa lacagtii dahabka ahayd, qofka dahabka u ah adoon. waxaa la yidhahnay qofka dirhamka oo silmarka lacagta ahayd, qofka dirhamka adoonka u ah ayaa yani tacis hoogay. waxaa hoogay buu nabigu ku tilmaamaya salawaatu llahi wasalaamu calayh cabdulkhamiisa, raqiifada iyo waxa yaro la bedelo qofka adoonka u ah. saar adoon igata insaanku adoonnimo horta kama baxada, qofka dibada waa cabd tula xayaati, laakiin marna wuxuu yahay cabdun lilah, ilahay ma adooniye, marna waa cabdun lishahwaati nafsihi wa hawaah. afaman itakada ilaahahu hawaah ayaa ilahay leeda ka warama ka waxay naftiisu doontay ilaah ka dhigtay waa layidhi wuxuu caabudo. qofna ilaahay buu ka amar qaataa, qofna shahwaati nafsiguu ka amar qaataa. nafsi waxay doonto haddaad u noolaato xoolo inaad xoojiso, fiidnimo kasoo rawax, shaqadii baad ka habsaanaysaa o in yaro cunaa intaad cunto u seexo, salaada u bood, haddana sii kac tag soo noqo, in yar seexo. markuu seexanayo wuxuu seexanaya arsiya shaqada habsaami, markuu kalahsay wuxuu kalahsay inuu xoolo soo shaqeeyo. noloshiisa wuxuu u noolyey inay jaraahimi soo gasho. jaraahimta soo gasho muxuu ku sameeya? guriginba haddana daahiyaha iyo qadiifadaha iyo dahabka iyo intan uba la bedelaa, intii horuba la raraayo in kaluba la dhisaa. waxoo dhan isku dar. dadkuba markaa muxuu adoon u yihi inaad maalin walba daaha bedeshid, waxaad adoon u tahay inaad sariirta bedeshid, waxaad adoon u tahay in gurigan iyo inta dhex taalo inaad ka shaqaysid, waxaad adoon u tahay oo cimrigaagi dhammaantii uu ku baxay intan qabashadeedii. idan cabdigu qofku yihi markuu aakhiro ilaabo ee noloshiisa ay u ekaato intaasi un, waa cabdi buu u yahay dirhamka iyo dinaarka. cabdi buu u yahay lacag ururinteed. waxaa laga yaabaa lacagta ururinteeda inuu ku xanuunsado, sidii xoojinayo u shaqaynayo inuu xanuunsado, bal markuu soo helo ayay kasii warwar badantay. halkee la dhigaa, baankee lagu ridaa, see looga dhaliyaa, saad usii tiro badin kartaa. bal marka uu bilyaneer noqdaabay ugu sii warwar badan yihi. telefon yar markuu soo dhace la dhahdo bangi hebel oad abshihiisa ku jirtay baa abshihii hoos taaka u dhacay, wadnaha in baad degta. tv-ga caadiga la daawado, kuwa lacag kale xanuun ka qaada. waayo maalin kasta markuu tag tv-ga uu bidhka siiyo eego, shalaysa abshigu iibsadayba taaka hoos u dhacay, wadnaha in go-da. marka kii alaabta lasoo saaray meel heblaayo ka soo socday ayaa degay, wadnaha in kala go-da. waa qof u noolin inuu hoos u dego. haddii uu xelana farxad buu la baktiya. idan farxadiisa iyo cadhadiisa iyo naxdintiisa iyo waxelkiisa iyo waxwaaliisa intiba adduunkan kolba dhab socda ayuu ku xidhan yihi. idan cabdi buu yihi waa werwarayaa ma seexdo. muxuu ka werwarsan yahay? safar heblaayo ma soo nabad gala, alaabtii dekedama laga soo saaray, eerboodka wuxuu yaallayna lasoo qaaday, arrinkaas see loo galay. sharikaadka waaweyn kuwa lihi shaqaalaha caadiga u shaqeeya iyaga ka liita. waayo shaqaalaha horteedba inta badan yimaadaan 11 habeenimana way rawaxaa. marka shaqaaloo dhami rawaxo isagu rawaxaa. waayo isagu waa inuu wixii laga shaqeynayo wixii o dhan inu tanziimiyo oo hagaajiyo ayaa sugaysa. idan ninka shaqaali intuu shaqeeyo in ka badan buu shaqeeya. intuu cuno ninka shaqaali in ka badanna ma cuno. koobkaas ah iyo koobkaa kafeega
oda beriiskaama welinkaaba kalluunka unbaa la wada cuna bini aadam intaa ka badan ma qaado. bal inta ugu xoogsiga badan laha had iyo goor ugu dhadhan liidata. yani qofka faqiirka waxaad moodaa cunadoo dhan way isaga dhamantaa waa wada macaan. inta badan ilaahay waa caadilooba wa xanuunsadaan waxbaba ma dhimaan wax kasta u liqi karaa. way yarta inaad aragto qof hanti haysta oo aan labadiisa keeba kilin ka buuxin. fadlan darasharkaa lagu dejiya, kan macaankaa lagu dejiya, kan marka shaaha la cabayaa laga horeysiya, kan gabada horteedaa la liqaa, kanna waa laga daba liqaa. noloshiisoo dhami waxay ku salaysantahay miduu ka hor liqo, miduu ka daba liqo, miduu marka shaaha la cabayo ku rido iyo miduu caynkan u galo. idan xataa tacmigeeda ma helo. halkaas u shaqaala ahi isagu intiisiisa cuurso isagoo dharagtaro iska seexdo. saa daraaddeed bu nabigu wuxuu leeyahay waxaa hoogay ninkan adduunka addoonka u ah, waxaa hoogay ninkan dirhamka iyo diinaka addoonka u ah. haddii la siiyo buu nabigu yii farxaya. waxaa aada u liitaa farxadaada inay ku xidhnaato maalintaa dhowrka kuu soo dhacdana aada faraxdo, maalintaad waxoogaa yaro weydana dudmadaada laga yaabo oo qofkaba ku idhaahdo maxaa kugu dhacay, meel xanuunsatay, meel waxla-aan baad afka la buuraysa, ama 2-3 waraaqood oo diilkoodii bixin kari weyday ayaa soo dhacay ad afka la buuraysa. nabigu wuxuu leeya wain lam yucta sakit, haddii lasii waayana wuu cadhooda. nabigu salawaatu llaahi wasalaamu calayhi wuxuu kaa cagsigiisa tilmaamay. kani waa kufayaa buu leeya haddii la kiciyo xataa isma taagi karayo. laakiin waxa uu nabigu tilmaamay salawaatu llaahi wasalaamu calayh wanaag wuxuu sugnaaday addoon faraskiisa haysta oo ilaahay jidkii u diriraya oo kimihii basaasaysan yihiin buu nabigu leeyahy, oo caguhu boodhaysan yihiin, oo hadduu ciidanka xagga dambe xaraasada wax ilaalinaysa ku jira adu xaggaa saaqa kaga jira yacni aan la kala ogeyn meeluu ciidanka kaga jiro aan qof magac iyo maamuus lahayn, oo hadduu idan dalbado aan idan la siinayn buu shaqadaada wad looye, oo hadduu inshafac hadduu ergo galo aan ergadiisa la aqbalay. yani waa maxay? waa qof nakiro ka ah mujtamacaadkiisa waa qof nakiro ka ah. waa dadkii nabigu ammaanayo salawaatu llaahi wasalaamu calayh. cumar buu nabigu wuxuu ku yihi war haddaad aragto nin uweyska la yidhaahdo ka ducaysa buu nabigu ku yihi, ilaahay bari weydii inuu ilaahay kuu bariyo. uweys buu yihi nabigu waa taabiciinta ninka u khayr badan aad arki doontaan. waa nin qabiilada qaran la yidhaahdo ka dhashay oo reer muraada shilibka muraad la yidhaahdo kasii ah, oo baras intay bari ku dhacday wada caddaaday oo ilaahay ka bogsiiyey oo mawdicu dirham in hal karoolo la saaro oo kale in leege ay weli bartaasi sii caddahay, oo hooyo qura leh oo hooyadiina u sabafala. wuxuu ka mid yahay nabigu ku tilmaamaya low aqsama cala allahi la abara, ilaahay hadduu ku dhaarsana ilaahay dhaarkiisa wuu aqbala. hada rajul isagoo ciidan la socdo yimi, mar kalenu si fiican uga warami doonaa. isagoo ciidan la socdu soo galay dayday wuxuu war hebel maydu ku jira haadaa la yidhi. wuu u yeedhay wuxuu yihi ii ducee, nabi maxamed baan maqlay oo leh ninkaa haddaa adkaan ilahay dambi dhaaf haydiin weydiiye. waa u duceeyey. dabeetana wuxuu ku yidhi lama gerani ninkan mujtamacu miskiga dhex jira markii cumar yaboohinayo la arkay ayaa lasoo hela. dabeetana cumar wuxuu ku yihi aan waraaq ku qoro oo waaliga kuufa waa ciraaqdan hadda kuufa meel la yihahdo waaliga yani governorka ama barasaabka fadhiyo kuufi haku soo dhaweeya aan waraaq kuugu qoro. wuxuu ku yihi maya cumar waraaqdaa uga gaani dadka inuu iskaga dhex jiro aniga cidina dadka iga garan ayaan ka jecla in idhaa waa hebel laysoo dhaweeye ma raba buu leeyi mustawacayaan kamid ahaanayo. kaas baa liibaanay buu nabigu leeyi. kii magac iyo maamuska raadinayeyna wax lagu tilmaamay sidoo kale. waxaana adduunka kani seedihiisu waxa weeyaan inuu yahay daarun lilimtixaani walfitna, waa wax laysku imtixaamayo, bal waa wax laysku fitnaynayo. nabigu wuxuu yihi salawaatu llaahi wasalaamu calayh ixdaru dunya fainaha khudratun xilwa. war adduunkan iska ilaaliya buu nabigu yihi, ka digtoonaada. sababtu waa maxay? waxa weeyaan buu nabigu yihi waa mid cagaaran, greenka dadku waa dooguu jecel yahay. oo weli markay jardiinooyinka iyo meelaha loo baxo abaar dadku jardiino kama dhigto ma fadhiisto. waxaa la fadhiistaa meel dhirtu soo baxday
oo cagaaran tahay oo magoolan badan. cunadana dadka macaan baa loogu jecelyahy inay macaanaato. dabeetana nabigu wuxuu leeyay salawaatu llahi wasalaamu calayh, adduunku labadaasuu isku darsaday, macaan iyo qurux badnibuu isku darsanaya, waxaana loogu talagalay in laydinku intixaamo ee waar iska ilaaliyo buu nabigu yihi. sidaa awgeed buu nabigu salawaatu llahi wasalaamu calayhi wuxuu ku tilmaamaya naadi'baani jaa'icaani ursila fii ganan biafsada laha min xirsi lmari cala almaali washarafi lidiini. xadiiska nabi warinayo oo saxiixa, wuxuu nabigu leeyay laba yey oo gaasaysan oo xoolo lagu sii daayey. yeydu walb waa bahal wax cuna, maca dalika cunista waa bahal xaasida. xoolaha marka hore u wada laaya, intuu cunayo qura, xayawaanada ugaarsada qaarkood inta ay cunayaan qurun bay qabsadaan oo cunaan, inta kale way iskaga tagaan. xayawaanada qaarkood horta way laayaan, hadii kontan neef oo adhiga kusoo baxo kontanka horta way dilayaan, kadib baa laga yaaba inu wax ka cuno. wuxuu nabigu yihi laba yey oo adi lagu sii daayey, laba yey oo adi lagu sii daayey waa sidee? yani waxa weeyaan waxbay gumaadayaan. laba yey oo adi lagu sii daayey sida ay adiga u fasahaadiyaan, qofka diintiisa ugama fasahaad badna xooladoonka iyo magacdoonka. yani laba yey siday adiga u galaan ayaa magacdoonka iyo adduunye doonka, yani dunida qofka bani aadamka muxuu raadiyaa in la yidhaahdo waa hebel oo la sharfo oo ama madax noqdo ama magac yeesho ama maamuus yeesho, iyo inuu maalqabani noqdo oo xoolo helo. labadaas ba qofku raadiya. labadaasi qofka diintiisa waxay u fasahaadiyaan oo u xumeeyaan mi nabigu leeyi sida yeyda ariga ugaad u xumayso. ku jira waxaa ku jira nabigu leeyi salawaatu llahi wasalaamu calayh, xadiisu imaam tirmidi wariy ibn xibaan bu sheekh albani saxiixa ku sheegay, ina likuli ummatin fitna wa fitnatu ummati lmaal. waar ummad waliba buu nabigu yihi imtixaan bay leedahay. fitnadu waa shayga yuftatanu bihi, lagu imtixaamo. ummadaydana adduun baa lagu imtixaamaya buu nabigu yihi. yani adduun badan bay helayaan. adduunku markaasi ma aha helistiis meshiisa wanaag badan, laakin waa imtixaan. sidaa awgeed buu nabigu salawaatu llahi wasalaamu calayh xadiiska saxiixeynka ku yaala waxaa soo galay isagoo fadhiya ayaa waxaa la keenay xoolo laga keenay baxrayn, meeshan baxrayn la yidhahdo muslimiintu markaa furteen jisyadoodii abilcalaa alxadrami saxaabigii loola jiray waayey ayaa lasoo diray. xoolihii baa magaalada yimi, dabeetana xoolahaas dadka hingiri ka wada galo lagu soo dhadhawaado oo qof waliba ad xoolihii wax ka heshiidiyo nebigu waxa ku siiyo. markii nabigu arkay dadkii say ugu soo dhadhawaanayaan bu wuxuu ku yihi abshiru aminu, waardadow waa bishaaraysta marka hore, waa marka labaadee rajadiina ha weynaato. wax fiican maa yasirukum baa helaysaan isaga yeela. fawallahi ma alfaqra akshaa calaykum buu nabigu yihi, anigu idinkama cabsi qaba buu nabigu leeyahay adduun la-aan, xoolo la-aan, caydnimo inay xidil yeesho idinkama cabsi qaba buu nabigu yihi salawaatu llahi wasalaamu calayh. haddaa maxaa nabigu inooga cabsanaya haddaan cayd laynooga cabsoonaynin? wuxuu nabigu yihi salawaatu llahi wasalaamu calayh, walakinii akshaa an tubqada addunya calaykum, waxaan idinka baqaya in adduunka laydiin ballaadhiyo sidii kuwii idinka idinka horeeyey loogu ballaadhiyey, oo aad dabeetano ku loolantaan sida ugu loolameen, oo ay dabeetano idin halaagto si kuwii idinka horeeyaba u halaagto. yani nabigu wuxuu tilmaamaya adduunye jacaylku inuu yahay wax wax halaaga. qofka mu'minka ah waxa looga baahan yahay markaasi waxa weyaan adduunka inuu qiimaheeda dhabka arko, oo aanay noqonin shay ilaahay subxaanahu watacaala
iyo diintiisa iyo cibaadadiisa dhaafisa. bale nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh inuu xoolo helo waxaabu ka door biday isagu inuu zuhdi qaato. ilaahay baa kala doorasiye inuu nebi addoona noqdo iyo inuu nebi boqoroo xoolo iyo hantiyo maamul haysta u noqdo. wuxuu doortay nebi aan wax badan haysan u ahaado. bale wuxuu damcay reerkii uu la noolaa iyo xaasaskiisii inay noloshaa la wadaagaan basiidkii cudub, nolol fudud in lala wadaago, oo aan nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh adduunyaa soo gelayo, adduun badan baa u imanayey. yani markaan zuhdiga ka warramayna kama warramayna adduunka inaanu soo gelaynin, adduun soo gelayo laakiin nebigu uu bixinayay. sida awgeed ayuu nebigu wuxuu doonay inuu zuhdigiisa iskaga jiro, waxuu cuno iyo wuxuu cababa inay yaraadaan. dabeetana markay yaraanta doonayeen bay haweenkii waxay ku yidhahdeen ilahi rasuulkiisiyo diilka noo kordi, waan rabnaa in diilku intanu ka baxo. hadiyadii nebigu muu yeelin. ilaahay baa markaa qur-aan soo dejiyey nebi maxamed iyo guryihiisii la kala hadlaya. ilaahay wuxuu ku yihi yaa ayuha nabiyu qul liazwaajik in kuntuna turidna alxayaata addunya wazinataha fatacaalayna umatickunna wausarixkunna saraaxan jamiila. yaa ayuha nabiyu baa ilahay yihi nebi allow waxa aad ku tidhaahdaa haweenkaaga xaasaskaaga waxaad ku tidhaahdaa in kuntuna turidna alxayaata addunya, haddaad rabtaan nolosha adduunye aad jeceshiin iyo inaad noloshan ku raaxaysataan, haddaad rabtaan nolosha adduun iyo ziinadeeda iyo dhaldhalaalkeeda haddaad doonaysaan fatacaalayna iswada taalaya haweenkoo dhamo umatickunna waa idin siinayaa waxaa ku raaxaysataan oo ku dhirgirsataan bisharti laakiin wausarixkunna saaxan jamiila, waana idin sii daynaya. ku raaxaysta adduunkiina, nimcaysta, xoolaha idin siinaya, waana idin furayaa dhabo alla ku yiri. anigu nolosheedu inaysaan ka bedelasan ma doonayo, laakiin idinka haddaad san kala jeceshiin waxaad ku raaxaysataanna waa idin siinaya, waana idin furayaa bu nabi ku yiri. haddaa ilaahay iyo maalinta aakhiro doonaysaana iyo rasuulkiisa ina raacdaan, dee ilah iyo rasuulkiisa yeela baa layihi. waa kuwii bartay ilah iyo rasuulkiisa inay raacaan. sida daraaddeed ayaa nabiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo meel jiifa ayuu saxaabi u soo galay. markaasuu wuxuu arkay nebigoo salligii yaraa way ku seexday, darme yar ama salli ayuu ku jiifsaday isagoo seeda qaawan. dabeetana seedahii buu kaga sawirnay, garabkii halkaas ayaa waxaa kaga sawirnay salliga xariisimihiisii. saxaabigii markii nabiga usoo galay buu arkay nebigii oo garabkiisi ay ku sawirantay, salligii uu ku jiifay. dabeetana uu ka murugooday. markaasu wuxuu ku yihi ilaahay rasuulkiisiiyo low itakadna laka witaa, aan firaash kuu soo sabayna bay ku yidhahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo. markaasuu nabigu wuxuu ku yihi maali addunya, waar anigii adduun maxaana kala galay buu ku yihi nabigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh. ma ana fi dunya ila karakibin istadalla taxta shajara uma raaxa watarakaha. waar anigii adduun iskuma nihin buu nabigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh, ilaa iyo sidii nin hadsaday meel hoosa safara oo intuu meel hadsaday dabeetana iskaga tagay. haddaad safar tahay oo ay ku qabsato inaad degto oo meel hadsatid, maka fakaraysa inaad daara ka seexdi. sawxunbaa tilada de kulleyba marna waad caraabi doontaayo, intaad qodaxda iska yaro xaadxaadha inaad jiraada iska yaro hoos jirsan, dabeetana waad ka kici doontaa, waad ka tegeysa. sida macquulki waxa weya inaad xasadhatin inaad inta kale yaro riixriixdayn ka siibsatid, dabeetana ad ka carrawdid. nabigu wuxuu ku yiri war adduunkan aad sheegeysaan anigu saasaan ku ah, maalmiin baan yaro jiifayaa, dabeetana waxaan tegayaa meel lagu waarayo. sida daraaddeed anigii adin waxba naga kala gelin. waa xadiidkii imaamu tirmidi warinayey ee xasanun saxiixa uu ku sheegay, arnaawdina uu saxiixinayey.
waxa kaaga filan in xataa ducada nebiga aanay ku jirin ilaahay xoolo badan isiiyo. waa jira saxaabo ugu duceeyey ilaahay caruur badan iyo maal badan sii, wiilkii anas ahay u shaqaynayo kale anas ibnu malik, allahuma kasir maala wawaladah buu ku yidhi, ilaahay caruur iyo xoolaba u bad. laakiin isagu wuxuu doortaan ka warramaya. nabigu wuxuu doortay intuu ilaahay baryo gacmaha kor taaga buu ilaahay wuxuu ku baryi jiray allahuma ajcal risqa aala muxamadin quuta, ilaahay reer nebi maxamed risqooda in la liqo ka dhig. ka waran intuu ilaahay baryo mala ilaahay risq ballaadhan oo caynkan oo kan oo kananki, wuxuu ilaahay intuu baryaba wuxuu leeyahay allahuma ajcal risqa aala muxamadin kafaafa, ilaahay nebi maxamedba reerkiisa oo dhan waxay cunaan kafaaf ka dhig. wa fii bacdi riwaayati quufa. waxaa kaaga filan inay caaisha tilmaamayso nebi maxamed salawaatu llahi wasalaamu aleyh khubus shaciir laga sameeyey. shaciirku waa geed xoolahana loo dhigo dadkuna marar ay cunaan. waa nooc min qabanbiyo heedahaas iyo weliba ah nooca inta badan xoolaha la siiyo, dadkuna mararka laska baahdo wax laga samaysto. waxay leedahay caaisha khubus shaciir ka samaysan 2 maalmood oo isxiga nebi maxamed kama dhergin ilaa intuu ka dhimanayey. bale abu hurayra, taasi waa caaisha. abu hurayrana wuxuu leeya reer nebi maxamed 3 maalmood oo isxiga raashidna kamay dhergin, wuxuu doonaba ahaadee sidii nebigu ugu geeriyooday. axaadiistan sheegaya saxiixay ku taala labadaasila. bale cabdiraxmaan ibnu awf ba wuxuu leeyihi oo maalqabeennadii muslimiinta ugu weynaa, kharaja rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam walam yashbac huwa walaa ahlu min khubzi shaciir. nebi maxamed wuxuu dunida kan ka tegey isagaan isaga iyo ehelkiisoona khubus kilis shaciir laga sameeye aanay ka dhargin. xadiiska imaam albizaar baa soo saaray, sheekh albanina saxiix ligayri buu ku sheegaya. sahl ibnu sacd saxaabiga la yidhahdo isna wuxuu leeyay ma shabaca rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam fii yowmin shabacatayni xataa faariqa dunya. maalin 2 jeer nabi maxamed ma dhargin buu leeyi. yani kuwii hore waxay ahayd 2-3 casho isku xiga ma dhargin. kana waxa weyaan maalin kula haddii xataa dhargay 2 jeer cino kama wada dhargin, maribuu ka dhargo iskaga tigi weyan. yani maalin kula 2 goor ma dhargin. waa saxaabo tiro badan saxaabada axaadiista warisay oo tilmaamaysa inay ka ahayd nabiga wax shaa'ica, maadaama sahl iyo cabdiraxmaan iyo abu hurayra iyo caaisha intuba ay warinayaan. bale waxa kugu filan inuu sahl ibnu sacd ku tilmaamayo, wuxuu yihi nabigu salawaatu llahi wasalaamu aleyh daqiiqda saafiga ah muu arag sidii loo soo bixiyeyda. soo taabiciina la hadlaya, markaasa waxay ku yidhahdeen heede nebiga waktigiisii maydan manaakil lahayn. manaakisha waxa weeyaan shaandhada, waashan daqiiqda lagaga hufo xashiiska lagaga reebo. manaakil miyaydan lahayn bay ku yidhahdeen. markaasu wuxuu ku yihi nebi maxamedba muu arag shaandho salawaatu llahi wasalaamu aleyh, meesha wax lagu hufaba mada arag. taabiciintu waxay noolyihin wakti dambe dadku barwaaqaysto xoolo badan la helay. dabeetana su-aal kale weydiina waxay ku yidhaahdeen oo haddaa sidaa u cuni jirteen kimisintaa wixii la daqiijiye aan laba kala hufin oo laba shaandhaynin sidaa u cuni jirteen baa la weydiiyey. markaasu wuxuu yihi war anagu intaanu daqiijino, intaanu waxnu ku samayno cajiino burburino ayun baanu afoofi jirnay sidii nasaftii soomaaliya isticmaali jirtoo kale. intaanu kala yaro afuufno ayun baa wixii duulaano ka duuli jireen. waxa soo hadhana waanu markaa cajiinin jirno, intaasna waa samaysan jirnay bay ku yidhaahda. ilahay baa qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya isagoo nabi maxamed salawaatu llahi wasalaamu aleyhi la hadlaya, laa walaa tamudana caynayka ilaa maa matacnaa bihi azwaaja minhum zahrata alxayaati dunya linaftinahum fiih. indhaha haytaagin baa ilaahay ku yidhi waxa aanu ugu raaxaynay ee nolosha flaayirkeeda ah baa ilaahay yidhi zahrat alxayaati dunya. flaayirka nololeed oo yara aan dadka qaar siinay ishaadigay qabanin baa ilaahay ku yidhi.
maxaa loo siiyey linaftinahum fiihi baa ilaha yihi inuu imtixaamo laakin warisqu rabbika khayru waabqa ilahay arsaaqdiisa iyo jannadiisa iyo nimcooyinka oo agtiisa yaala ayaa ka khayr badan oo ka waaris badan. macnaa dalik waxaynu leenahay adduunkaa qiimihiisa waxa uu islaamku inoo tilmaamay inuu adduunku wax liitay, inuu xaqiiriyo, inaanu ahayn ama mudnayn wuxuu qof noloshiisa o dhan siiyo. waxaa laga yaaba maanta dadka jooga waalidka caruurta wuxuu u tarbiyinaya inuu iskuul ka saaro, jaamacad ka saaro, kan ka saaro, iyaga marka intaa ka baxaan inay shaqo bilaabaan, waxaasoo dhan inay waxoogaa xoolaan in la xoogsado. in wax la bartaa wax xun maaha, in la xoogsadaana wax xun maaha, laakiin hamigu inuu loo nooliyo inuu intan noqdo oo ay aakhira meesha ka baxdo ayaa wax liita ah. waxaan meesha ku jirin inaad shaygii qiimaha lahaa ilowdada ama aanu xisaabtan kaga kuugu jirin, ama marka isagu khatar kaa galayo aanad ogeynba inuu khatar ku jira iyo inaanu ku jirin diintaadii iyo saad janno u raadin lahayd iyo ilaahay subxaana watacaala saad u caabudi lahayd. adduun waxaa lagu tilmaamay inuu qaliil yahay, marka inuu yaryahay, xagga tirada inuu ka yaryahay, xagga tayada inuu ka yaryahay oo saxaro la nooc yahay, xagga warista inuu ka yaryahay oo wakti yaruu jirayo, xagga qiimaha inuu ka yaryahay oo ilahay agtiisa aanu qiimaba ka mudnayn, xag wal oo laga eegaba inuu yaryahay. saa awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu in badan inoogu tilmaamaya inuu yahayba waxa uu gaalo ku abaal marin lahaa oo ku kastoo ilaahay ka gaaloobada guri dahab iyo fida ka samaysan in la siin lahaa, haddaan laga cabsoonaynin dadka kuwa kalena inay ku fitnoodaan. waxaan kusoo koobaynaa qur-aanku durux badan buu u maray, wadooyin badan baa ilaahay u maray in laynoo tilmaamo meeshani wax lagu sii warwaray ay noqon. falaa tucjibka amwaaluhum walaa awlaaduhum inama yuriidu allahu liyucadibahum biha fi lxayaati dunya watazhaqa anfusuhum wahum kaafiruun. war waxoogaagan gaalada aan ku dhigayo baa ilahay waa dhibbaabay ku tahay, isha haytaagina baa laleeyi subxaana watacaala. waxaa laga tilmaamaya adduunka cidda jecel inay gaalo uun tahay, aakhiro cidda jecelina inay dad muslimiina yihiin. kelmadaan idin leeyahy marka waxay dadka maanta jooga waxaa indhahooda ku weynaaday oo la buurmay waxoogaa kan laamiyadan iyo guryaha kan iyo daarahan iyo inta kanba aada ula buurmay. dabeetana waxaa dhacday inay aakhira la yaraatay halkii dadka muslimiinta waxaana ay cagsiga ahaan lahaay. dad muslimiinoo xoogsado wax soo saara waa jireen, tijaar muslimiina baa jiray, laakiin lacagta gacantooda may dhaafin, qalbiga may degin, noloshiisuna lacag may ahayn ee noloshiisa aakhiro yahay. lacagta waxa uu ku raadinayo koo soo gashay waxay inuu janno ku helo. sidaa daraaddeedba kuwii hantida haystay qaar hanti haysta oo 10 almubashiriin kamidaa jiray, cabdiraxmaan ibni cawf ama cusmaan ibni cafaan, laakiin waxay ahaayeen dad hantidoodu aakhiro ula jeeda oo aan adduunka qiimo badan aan ku lahayn. waxay ahaayeen dad diintooda inay ilaashadaan ay kaga qiimo badnayd adduunkan iyo isracintiisa. waxay ahaayeen dad saacadaha uu aakhiro geliya ay ka badnayd saacadahu adduunka geliyo. yani wax waloo nolosha ah haddaad rabto inaad ka midaag dhaliso waa inaad wakti gelisaa. waxaan wakti iyo juhd iyo awood iyo tamar la gelin natiijo lagama helo, shaqo bilaashi ma jirto. idan waxay ahaayeen dad hantidooda, naftooda, maalkooda intaba ku raadinaya inay aakhiro ku helaan. inagase waxaad moodaa mawaasiintu inay hanti tahay. casriga dambe
qofka waxaad moodaa bini aadamnimadiisa in lagu qiimeynayo jeedkiisa inta ku dhigta. haddaad $1 haysato qiimahaagu waa $1. haddaad $2 milyan haysato qiimahaagu waa $2 milyan. haddaad 1 bilyan haysato waa 1 bilyan. taa macnaheed waxa weyaan in dadku maadada lagu qiimeeyey oo bini aadamnimada intay lunto jeedkiisa waxa ku jira in lagu qimeeyo waana wax liisa. waxaan kusoo koobaya idinkii anagaba ilaahay subxaana watacaala hayna dhowro, dariiqa xaq ahaana hayna tusiyo, kuwa islaamnimada ku mintiba ee aanay ka libin alle subxaana watacaala haynaga dhigo, diintooda kuwa dhaafista iyo aakhiradooda adduunka ee adduunku la yaraado aakhira doorta inay naga yeelo subxaana watacaala. wallahu aclam bilahi tawfiiq. bismi illahi raxmaan raxiim. ilaahi subxaana watacaala hataa walmarwashiiqa sidaa qiimaha uu inoogu faahfaahiyey adduunyada iyo qiimaheeda. ilaahina subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa inuu naga dhigo kuwii adduunyada dhiganta ilaah iyo rasuulkiisa dhigoos. halkan waxaan kasoo jeedin doonaa dhowr su-aalood oo ay soo qoreen halkan jooga insha allahu tacaala. intii aanu ku jawaabnana ayaynu ka jawaabi doonaa haddii ilahay ka dhigo inaga ilaalin doona waktiga muxaadarada. su-aasha koowaad waxay leedahay, waxaan ahay gabadh anigu ninkii waa kala tagnay aan qabnay, caruurtiina aniga ayay ila joogtaa. marka haddii ramadaanku soo bilowdo xilligii fitriga la gaaro, ilmaha fitrigooda yaa bixinaya maalinta fitrigooda bixinaya mise isagaa bixinaya? ilaahay xaq ahayna waafajiyo. awalan qabla kuli shay ninku ilmaha uu dhalay isaga ka mas-uula, nafaqadooda iyo fitrooda iyo waxooda dhan isagaa lagu leeyahy. laakin bisharti islaantuna inay ogolaato ilmaha inuu ninku yeesho. hadaad intaad erido tawaado fitrigana isagu ha bixiyo, carruurtana iyo arkin anigu aan haysto, si qurux badan maaha. haddaad ka bixiso adiguna waa khayr inaad carruurtaada ka bixisay, waa samo aada u fashay, wax kaa xumaanaya maaha. waa kontan karayna lagaka qaado samanaha maaha. 2 galaan oo beris ama 2 galaan iyo dad beris oo ilmaha dashay inaad ka bixisaa wax weyn maaha oo loo raadceeyo, laakin mas-uuliyadda asalkaa isagay saaranta. wallahu aclam. su-aasha labaad waxay leedahay, waxaan rabaa inaan ogaado salaadaha sunnada ah ee faralka ka dambeeya tiradooda inta ay leeg yihiin iyo qaabka loo tukanayo. salaad sunno oo la tukado habeenkii la tukadaaba ugu khayr badan. salaatuleilka salaada la yidhaahdo ayaa marka faralka laga yimaado sunno la tukado kaas harta u khayr badan. oo nabigu wuxuu ku tilmaamayaa salaad ilaahay loo tukado bacda almaktuuba salaatuleil baa ugu fiican. ilaahayna markuu ammaanayay dadka saalixiinta waasuu ku ammaanay, kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun walasxaari hum yastakfiruun baa ilahay leey. kaanuu qaliila min alleyl maa yahjacuun. sunnaha raatibta ahi waa 2 ragcadood oo salaada subax ka horeeya, 2 duhur ka horeeya 2 ka dambeeya, ama 4 ka horeeya 4 ka dambeeya, ama 4 ka horeeya 2 ka dambeeya. intaba duhurka waa la tukan karaa. 2 maqrib ka dambeeya iyo 2 cisho ka dambeeya iyo witrka. qofka muslimka ahi marnaba inaanu witr ka tegin. nebigu safarka iyo xadarka 2 salaadood oo sunaa kamid aanu ka tegi jirin baa jira. 2 ragcadood oo subaxa ka horeeya u tukan jiray. witrkana witrku waa salaad keli ah oo ama mid ama 3 ama 5 ama yani salaadun odd number ah kala dhiman, oo ama 1 ragca ama 3 ragca ama 5 ragcadooda iyo wixii lamida. witrkaa habeenkiina kama tegi jirin nabigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh. maadaama waqtigii salaaduna uu dhow yahay, insha allahu tacaala su-aalaha soo qorta inteeda badan waxaynu dib ugu dhiganaa muxaadarada dambe, maadaama waqtigeedu ka waasacsan yahay. muxaadaradan hadda waxaana kasoo gabagabay duca aan xilligaa dadka walaalaha meesha fadhiya ay soo dalbadeen inuu suuquu duceeyo dad muraadalo iyo caruur dadka ay ku xiran yihiin labadaba kusoo dhaweysa. waa idin ducaynaya insha allahu tacaala, laakiin hal mida baan idin xasuusinayaa. 2 qof oo muslimiina oo baahan
qof waa qof muslima xusanaya wadnaa laga hayo jiifay, nin kalena waa nin muslima oo reerahan soomaalidu ay mataa oo deynaysan oo waxba haysanin. labaduba waxay soo socdeen dadka muslimiinta aada la kulanto in wixii aan u weydiin karaan weydiiyo, wixii a u bixin kartaan inaad ka ururisaan. uma sheegin qolada masaajidka iyo maamulkiina oo dhan, waxaan u arkay inay sadaqa iska banaan tahay, dad muslimiina loo ururi karo. idan waxaa u ururin kartaa inaa ururisaan. kan labaad, ilaahi subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa dhammaanteen dadka muslimiinta dhibta in alla ka kor qaado, ibtilaaadka in ilaahay u fudaydiyo, adduun iyo aakhiro in alla inoo wada naxariisto, inta caafimaadka qabta in ilaahay caafimaadka u kordhiyo, inta bugta in ilaahay subxaana watacaala bukaanka ka faydo, ka dhigo tahuur iyo ku dembigooda lagu dhaafo, khayrkana dhammaanteen alla ina waafajiyo. midna waa idinku darayaa sadaqadu waa waxyaabuhu nebigu sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi dadka bukaa inay isku daweeyaan. yani inagu inta badan waxaa laga yaabaa dawada inaynu naqaano inta dhakhtarka, xataa ilahay waxaynu xasuusanaa bay u badantay markaad soo daasho, markaa dhakhaatiirtu waxba kuu qaban weydu ma tidhahda halay duceeyo ama waxay ahayd qofka muslimka marka u horeysa ee qaanjeerada uu dareemo inuu ilahay gacma kor u taago, ilahayna ku hoojin maayo haddaad ilahay si dhaba u barido. waxaanu nabigu tilmaamay daawo mardaatum bisadaqa, kuwiina xanuunsanaya waxbixinta ku daaweeya buu nabigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh. idan insha allahu kuwa kurbada haysta haddaa kurbada ka qaadaan, waxaan jeclay rajeynaya in ilaahay subxaana watacaala idinkana kurbada idinka qaadi doono. asalaamu calaykum.